مشروع دي بي وول runtii annaga waxaan siyaasiyan soo dhaweynaynaa maalgelin kasta oo u hoggaansamaysa sharciga Puntland ilaalinaysa xaqa ay leedahay dadka reer Puntland dabcan heshiiskaas waa naga horeeyay waan ixtiraameynaa heshiisyadii dawliga ahaa ay galeen dawladihii hore maxaa yeelay waxay nagu ixtiraameen markii doorashadii laga badiyay inay si nabadgelyo ay ku wareejiyeen wixii awood ay hayeen taas annagu ku qadarinayna annagu waxa naga ballanaa inaan ilaalino wixii heshiisay ay galeen laakiin dawladdu waxa u furan heshiis kasta oo markaas ay u aragto inay wax ka dhiman yihiin ama siyaado ku yihiin inay ka hadasho oo ka doorto inay wax ka saxdo waxa suuragal waa heshiiskii u aragtay inuu sudan ahayn inay buriso haddii loo arko inuu saas yahay laakiin mar rabo inaan ka hor dhacno heshiisyada ilaa aan la kulanno heshiisyada ciddii nala gashay aragno ciladaha uu leeyahay waxaanse anigu intii yareed aan jooga qirayaa heshiisyadaas dhinaca dekadda waxyaabo badan oo gaabis oo dhinaceena ka yimid inay caqabadaha qayb ka ahaayeen waxaan rajaynayaa dhinaceena inaan u diyaar garowno inaan caqabad ka imaan waxaan kaloo soo dhaweynaynaa cid kasta oo maal gashanaysa annagoo tartan xora gelin doona iyo siday noogu kala munaasabsan yihiin eegi doona